waxaan faraynaa shacabka Soomaaliyeed inay ka foolajignaadaan waxyaabaha lagu sheegayo isku soo bax ee noocaas oo kala ay ujeedadu tahay qalqalgelinta caasimadan haddii qof dhintana adinka la idin haysta sabab aad leedihiin haddii qof muwaadin wax ku gaaraan gacan aamin ay ku jirtaa caasimadan iyo dalkaanba la isaga maharaayo ma la iskaga haraayo in faldambiyeed noocyadii maanta la soo abaabulo kala inay caasimadan ka dhacaan ka foolajignaada shacabka soo raacinina wiilasha yararkaana waxaan leenahay ka foolajignaada bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wassalaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ama bacdu shirkeenan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhacdo galabta ka dhacday degmada wadajir gaar ahaan laamiyaraha Soobe runtii sida la socotaanba in dawaalaba waxa socday in maaragtay dad hogaamiyaal hore iyo siyaasiyiin oo ku howlanaa inay suurad xumeeyaan ammaanka caasimadda iyagoo ujeedkoodu iyo maqsadkoodu yahay in caasimadan u laabato siday shalay ahayd iyo siday daraad ahayd siday haajirto la yaqaan runtii waa ayaan daro in dad Soomaaliyeed oo hogaamiyaal soo maray inay ku fakarayaan inay hooyooyin iyo shacab dhaxdood inay maaragtay ciidan maleeshiyada iyo wax lamida wax la halmaala inay maaragtay ay ku soo xareeyaan oo caasimadda dhexdeeda maaragtay qalalaasay ka abuuraan iyo nabadgelyo daro oo wax laga xumaado ayaan daro ah runtii sida la socotiin hameen ka sii horeeyay howlgalladii routiniska ahaa ee 4 sano ee la soo dhaafay howlgalladaas 4 sano la soo dhaafay hameen kastaba wax kamida 95 waaxood caasimadan hameenba wax la baaray ay siyaasadeeyeen runtii taas oo aan helay cadeymo dheeraad dad yoomeel lagu aruurshay oo qawaarijiya oo xogtooda xogo sir doona oo la helay inta howlgal loo qaaday xaafad kamida Daynile lagu soo qabtay iyagoo shabaabka qawaarijiya oo ummadan ay dhibaateeyaan rabay oo qiraal ah oo iyaga ay taagan yihiin oo ay hadda qiranayaan in laga soo dhax qabtana inay gabaad oo ahaayeen leeyihiin runtii dad ayaa kamida waxay ahaayeen dad shacab ah oo loo tagay publicna ummadda Soomaaliyeed uu sheegay runtii sidoo kale waxa la socotiin in ammaanka caasimadda kontaroolada laga sugayo la siyaasadeeyo ammaanka in la siyaasadeeyo maahan caasimadan ammaankeeda iyo dhibka laga soo maray iyo wiilasha u dhintay iyo kuwa u dhaawacmaba idinkuna maadan dhalin baa leenahay wiilal Soomaaliyeed bay ahaayeen dad Soomaaliyeed bay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahaayeen kuwa kamidana qaboori jiraan Allah u naxariisto Ilaahay shahiid bi ayna Allah ka aqbalo kuwa kamidana iyadoo dhaawac oo haraadigoodi joogaan ee amniga iyo dalkan dadkan ka shaqeynayaan in la suurad xumeeyo oo ciidanka ammaanka caasimadda sugaya maanta meeshay marayso la ogyahay in la yiraahdo waa burcaday ahaayeen iyo maaragtay ammaan laguma qabtee lacaga looga aruushaa waa ayaan daro waxaan leenahay ka foolajignaada dadka waxa ku howlan iyo arintaas isan in ku galin sidib inta waxa dheer waxa daliil ah shacabka Soomaaliyeed caasimadda ku nool in ammaankooda iyo kala dambeynta iyo ammaanka caasimadan inaysan dadkaasi ujeedo kala hayna maqsadkoodu yahay qalqalgelin amni shacab dhibaatooda dhaawac iyo dhimasho ka dhaca waxa daliil u ah inay galabta ugu dambeysay meydkii u dambeeyay leerkaas silsiisada u dambeeyay galabta ugu dambeeyay waxaad arkayseen waxa ka dhacay Soobe inuu hogaamiyaha intuu soo aruurshay dhalinyaro Soomaaliyeed gurigiisa ku soo aruurshay maleeshiyaad qoryo loo soo dhiibay shacabkii lagu soo dhaxdaayay xilkasnimo hay'adaha ammaanku waxay muujiyeen xilkasnimo iyo shacabka iyo dadka iyo dalka in loo turo maadaama iyo shacabka Soomaaliyeed ba inay arkaan in shacabkii dhaxdiidii qoryo aan lagu tira gelin lagu dhax caaylayo oo maleeshiyaad loo soo dhiibayo waxaan faraynaa intaas dheer oo faraynaa diinteena ugu dambeeyay waxay tahay waxaan faraynaa shacabka Soomaaliyeed inay ka foolajignaadaan waxyaabaha lagu sheegayo isku soo bax ee noocaas oo kala ay ujeedadu tahay qalqalgelinta caasimadan inay ka foolajignaadaan oo hadda kadib aysan waxa iyo wax lamida soo raacin aysan imaan maleeshiyaadka iyo dadka la jooga guryahoodana waxaan leenahay magacyadiina iyo wajiyadiina iyo suuradihiina waa la hayaa waana la xisaabtama qof kasto kamida sidii hore ma ahan nirow leeyahay qof kasto kamida teleefankiisa la hayaa waa diiwaan gashan yahay qof dambi galo oo looga haraya ma jiro kuwa mas'uuliyiinta hore waxaan leenahay shalay maanta ma ahan hadda barateen in anta wiilal iyo hooyooyin Soomaaliyeed dhaxdooda lagu dagaalamo wax ku dhintaan adinkuna aan nabad gashaan ma dhacayso dambi qofkii soo abaabula loo raacana asaga loo eedeynaa hadda wiilal qoryo u soo dhiibtod oo shacabkii dhaxdooda inaad tiraado fawda sameeyay hay'adaha ammaanka iyo amniga kala dambeynta iyo dawladnimadii iyo dadkan shacabka ku dhex dagaalama aad tira ma laga harayo adigan waaran ku soo dalbanayna dacwad gudbinayna gacantaana kugu soo qabanayna iyadoo waaran sharciyeed lagu haysto gurigaana lagu soo galaya markaad ka shaqeyso amni darro
oo ay soo abaabusho faldambiyeed dad ay ku dhintaan oo dhibaato ka timaado mas'uuliyadeeda bari adaa qaadanaya shacabka Soomaaliyeedna waa u sheegaynaa idinkana waa idin sheegaynaa ma la iskaga haraayo in faldambiyeed noocyadii maanta la soo abaabulo kala inay caasimadan ka dhacaan ka foolajignaada shacabku ha soo raacinina wiilasha yararkaana waxaan leenahay ka foolajignaada haddana waa la idin haystaa oo inkaga harima kuwa soo diraana waxaan leenahay diinana waa qoraynaa haddii qof dhintana adinka la idin haystaa sabab aad leedihiin haddii qof muwaadin wax ku gaaraan shacabka caasimadan ku nool ee shacabka Soomaaliyeed dhiigoodu maalinta inta la dilay laga tagayo ma ahan maanta waa la barateen ma ahan maanta waxaan leenahay ka foolajignaada aflagaadada iyo subcad umaynta hay'adaha ammaankana caado ay idin ahayd waxaan leenahay inagu haddaad nacaydaan iyo haddaad amaantaanba waa isku kaaya mid inaan amnigaan iyo dalkaan iyo dadkaan ka shaqeynaan tootahana u xirnay una eedownay diyaarna u nahay runtii inaan dalkaan iyo dadkaan u adeegno in ka sugumeyn iyadoo qawaarijta lala diriraayo oo dagaal qawaarij lagu jiro oo magaalooyinkii waaweynaayo qaar kamid la isku haysto oo adiga xataa ka soo jeedana waxa la haydeen hal guuto military oo dirir karta lama arko waa wax laga yaqsaday ahayd runtii haddana inaad inta military ka soo gudubtaan idii ammaanku gudaha inaad u timaadaan waa waxaan dareemeynaa inay tahay suurad xurmeen iyo amniga hay'adaha ammaanka oo la suurad xumeynaayo iyo ammaanka kala dambeyntii oo la diidan yahay waxa aad danaynaysaan oo rabtaana inay tahay fawdo iyo kala dambeyn la'aan iyo Soomaaliya sidii ku soo jiri jirtay waxa laga gudbay gacan aaminay ku jirtaa caasimadan iyo dalkaanba la isaga maharaayo faldambiyeed kasta oo dhaca cidii geysataa loo qabsanaa insha Allah ta'ala